Paul Scholes oo weerar afka ah ku qaaday Manchester United kadib kahaaristii Champions League iyo xaqiiqooyinkii laga diiwaangeliyay kulankii ay Manchester United kaga hartay tartanka xiisaha badan ee Champions League muuqaalkan ay ku wadaagi doonaa ee soo dhawada wade balse markii hore Alexander muuqaalka sina sheerkare laacibkii hore ee Manchester United Paul Scholes oo ah halyeeyga Manchester ayaa weerar ku qaaday kooxda kadib guuldaradii ka soo gaartay Bayern Munich kulan qayb ka ah wareeg gurubyada tartanka xiisaha badan ee Champions League isagoo ku sugan shabakada DND Scholes ayaa yiri runtii waxa uu ahaa xiliyaareed xun Champions League waxay ku bilaabatay kulankii Galatasaray haddii ay dhacdo in gurigaaga lagaaga badiyo Champions League waxa aad u dagaalami doontaa sidii aad u badbaadi lahayd laakiin intaasi kadib si fiican ayay u ciyaareen waxa jira hoos u dhac weyn oo kooxda ah marka aysan haysan Casemiro iyo Christian Eriksen hoos u dhac weyn oo xagga dayada ah waxa uu carab ku adkeeyay waa walaac weyn haddii uunan Hojland helin fursad kulamadii ugu dambeeyay ayuu hadalkiisa raaciyay laacibkii hore ee kooxda Manchester United ahna haliyay kooxdaasi Paul Scholes oo isagu ka hadlay guuldaradii kooxdiisii hore Manchester xalay ka soo gaartay naadiga Bayern Munich dhinaca kale Manchester United ayaa laga reebay tartanka Champions League kadib guuldaro ka soo gaartay kooxda Jarmalka ka socota ee Bayern Munich gool uu dhaliyay Kingsley Coman kaas oo kooxdiisa ku hogaamiyay guul ay ka gaareen kooxda Manchester United kadib ciyaarta waxaa la soo diiwaangeliyay xaqiiqooyinkii Manchester United ay kulankaasi ay kala soo kulantay Manchester United ayaa laga badiyay 15 gool tartanka UEFA Champions League ciyaareedkan waana kulashii abid ugu badnaa ee koox Premier League laga dhaliyo heerka gurubyada hal xiliyaareed oo kaliya Manchester United ayaa ku dhameysatay kaalinta ugu hooseysa groupka ee tartanka Champions League markii labaad iyadoo hore sidaan u sameysay 2005-2006 Manchester United ayaa sidoo kale laga saaray wareeg gurubyada Champions League saddex ka mid ah todobadii xiliyaareed oo ay tartanka ku jirtay tan iyo markii Alex Ferguson ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta waana in ka badan 18 xiliyaareed intii uu Ferguson hogaaminayay naadiga Manchester United ayaa sidoo kale laga badiyay 12 ka mid ah 24 kulan oo ay ciyaartay tartamada oo dhan xiliyaareedkan inta badan waa laga badiyay 62 kulan oo dhan xiliyaareedka 2023-2022